كحولي تصوري كلا وسكين يمارت مسمار وايا أوجدان هذا أوجدان قفل واقعية أيه كان يجمع يكني جنبا كني Sheekh Xasan Maxamed Xuseen Xasan Cilaaji ayaa magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ka bilaabay cilaajinta dadka la ildaran xanuunada ay ka midka yihiin jinka isha iyo sixirka qaybihiisa kala duwan kaasoo lagu daweynayo dadka la xanuunsanaya sixirka isha iyo jinka Qur'aanka Kariimka ah iyo sunnaha nabigeena subana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Sheekh Xasan Maxamed Xuseen ayaa xarunta cilaajka Daarul Ikhwa ee magaalada Burco waxa uu ku sugnaan doonaa muddo kooban waxaanu shacabka ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ugu bushaareeyay gaar ahaan dadka la ildaran xanuunadaasi inay ku soo booqdaan xarunta uu ku leeyahay magaalada Burco gaar ahaan agagaarka dawladda hoose degmada Burco taasi oo intuu ku sugnaa magaalada Burco uu ka waday cilaajinta dadka la ildaran xanuunada jinka sixirka iyo isha isla markaana uu goobo kala duwan ugu tagay dadkaasi la ildaran xanuunadaasi waxaanu ugu baaqay inay xarunta soo booqdaan isla markaana telefoonada kala soo xidhiidhaan sidoo u dabiibo dadkaasi la ildaran waxaana ka mid ah hadaladiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay mahad dhammaanteeda u sugnaatay oo nimcatul islaam na siiyey qur-aankana inaan isku daaweyno ilaahay maaragtay na waafajiyey allah subxaanahu wa tacaala maaragtay mahaddaas dhammaanteeda la ayaan ku shukrinaynaa in badan إن شاء الله تعالى وياها وحن كسقنا قبل كتقدر أيام كسقنا مجالة برعو إن شاء الله تعالى الشغال كوضا ضدك مارتي أو قبل هذا مارتي محلي هذا سيد مارتي بربرة مارتي محلي هذا أنت كوها رسن إن شاء الله هرجيسي وحن ليها إن شاء الله تعالى بإذن الله الباري وحن شقة كوضا مجالة برعو بإذن الله الباري ربع عن وحن أقول بشارين يا inaan shaqayn doono labada gelin biidin illaahi albaari sixradana waan bilownay oo xaafadihii laga soo bixinayay maaragtay dadka oo guryaha ku dhiban insha Allah taala waan bilownay insha Allah taala shaqadana labada gelin ayay socon doontaa dadkana waxaan leeyahay biidin illaahi albaari ha laga faa'iideysto in kooban ayaan joogi doonaa biidin illaahi albaari si maaragtay uga faa'iideysataan waxaan leeyahay insha Allah taala ha la yimaado quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala wax la isku daway waxa ugu fiican waa asaga wayahana dadka waxa aad iyo aad u daashaday maarta xanuunada ruuxiga sida isha sixirka iyo maxalida jinka marka waxaan dadka aan dardaaran maartay guud aan u siinaya waxay tahay in dadku maxaa la yiraahdaa ay guryaha sootul baqara ay ka shidaan oo guryaha maartay subaxii ama maqribkii ay sootul baqara guryaha ka shidaan أذكار الصباح والمساء أي كده داران إن شاء الله تعالى هذه أنت أسمي سيد ويسدنا مارت أبدي سيد إن شاء الله تعالى بإذن الله الباري علاس كله مارت إنه قادر قاد الله كرجينا بإذن الله الباري مرك إن شاء الله تعالى وحن كرامات إذن كعصنا يا إن شاء الله تعالى الله إذن عزي الله إذن شرفه عصي كلمات أن إذن شيء وحي تهي إن داء مرضاكم بالصدقة ولا نوم محمد صلوات الله وسلامه عليه ذلك حنوسا كدوية صدقة بحية ذلك مساكين تاء فقراء ضعفاء أن وحنا الهيسنين وقع رونا إن شاء الله تعالى بإذن الله الباري وحن صحينا فمن الله أي أحد وحن قرننا ما في شيطان أي أحد سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيال عقد دعاء البخاري سانتي في مقالة برع حرونت قبل كتقدر